Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan karinaynaa qado baasto iyo cheese ah. Waxaan soo diyaarsaday hilib chicken ah iyo xawaashidii lagu dari lahaa. Chickenka ayaan ku darayaa xawaashidii iyo maraq digaagii si uusan biyo u sameynin oo uusan u xumaanin. Waxaan ku daray qaado saliid saytuun ah. kadibna waa isdhexgeliyey. kadib waxaan ku daray wax yar oo basbaas ah. kadib waxaan saaray digsiga ayaan dabka saaray. waxaan ku daray 2 qaado oo badar ah. waxaan ku daray basashii. waxaan ku daray chickenkii, yaanyo mirooley, kabsar caleen, wax kasta oo maraqa ku macaanaanayo ayaan ku daray. waa qadadii ciida maanta aad baa looga shaqeynayaa insha Allah. kadib biyihii baastada ayaan dabka saarayaa. waxaan ilaawiyaa shishiidkii. hadda ayaan ku darayaa shishiidkii, tuuntii. waxaan ku daray baradho. maraqii waa dhammaystiran yahay run ahaantii. wax ka dhiman ma jiro. waa daboole. baastadii ayaa haddana soo kartay. waxaan ku daray baastadii iyo cusbo. wax yar ayaan sugaynaa intay labadaba kasoo bislaanayaan. baastadii ayaan miirayaa hadda. way bislaatay. suugadiina ayadana way bislaatay. baastada waxaan ku darayaa cheese-ka mozzarella. dabka ovenka waxaan geeyay 350. kadibna waxaan soo diyaariyey saxankii baastada ovenka lagu gelin lahaa. baastadii ayaan ku gurayaa. kadibna waxaan ku darayaa suugadii ayaan kor ka saarayaa. baastada waxaan ka dhigay 2 qaybood. qaybtan iyo qayb aan ka hormarin doono. qayb walbana cheese-keeda waa lagu darayaa. hadda qaybtii labaad ayaa dhiman. baastadii labaad 2 qaybood baan ka dhigay. waa iskor saarayaa. waa sida aan u sameeyo. markaan wuxuu dhan ku dhamayno ovenka ayaan gelinaynaa 20 daqiiqo. 20 daqiiqo kadib waxaa soo baxaysa baasto 2 dabaq ah oo aad u qurux badan. fadlan subscribe iyo saar like-ta iyo share gare. Assalaamu calaykum.